السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي كسر هذا ويوتيوب channel كي ولالكي كاري أحمد. horta marka hore isku soo noqod wanaagsan iyo video cusub maanta halka waxaan soo fadhiistay waxa weeye Sooraan iyo Jawaan xadigooda inaan wax ka taataabto ama aan halkii xaaladiisu marayso hadda halkii waxay ku sugan yihiin iyo arrimahooda inaan idin wadaago haddii ay tahay markii koowaad ee aragtay channel-kaygan ama aad soo gasho waxaan jeclaan lahaa inaad subscribe iska saarto oo iska free moogtahay haddii aad saari lahayd way noo fiicnaan lahayd like iyo comment dad noogu dartid wax ka fiican ma laha waad ku maasantahay saddexda qodob ee subscribe iyo like iyo comment-iga go'aankaad ka qaadatay adaa ku maasan haddeen hore uga la Sooraan iyo Jawaan xaaladooda iyo waxay ku sugan tahay aniga oo marka hore ka soo bilaabi doono halkii xaaladoodu ka soo xumaatay ilaa dhamaadka meel walba oo isku day doonayaan talaabo inagoo fiiguna soo koobanayaan idinku soo gudbiyo Sooraan iyo Jawaan sida weydeen dawladii hore ee Siiraayo waxay ka qaadan jireen lacago gunooyina mashaariicda wacyigelinta lacago dheeri ka qaadan jireen aduu lacago xisaab la'aan oo fiican oo ku filan noloshooda si kastaba ay ka qaadan jireen intii ay timid dawladdan Muuse Bixi waxyaabaha ka go'ay ama laga handaraabay ay iyagu leeyihiin waa laga handaraabay ka cabanaya waxa kamid ah lacagihii sida xisaab la'aanta soo gali jiray oo dhan iyagu oo kaliya loogu soo koobay wax kasta intii gunad intii reeday xaq u lahaayeen ama ay uga tirsanayeen wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta iyo arrimahaas iyaga oo saluugsan ama ka soo horjeeda sida loola dhaqmay ay lacagii yaraa ay heli jireen ka badnaa intan u qoran ama dhacdhacooda ama wacyigelimaha mashaariicda lacagii ku qaadan jiray wixii oo dhan laga jaray waxay labadooduba u tafaxayteen ama ay noqdeen in ay ku biiraan mucaaradka dahsoon ee dawladda Soomaaliland ama Muuse Bixi mucaaradka dahsoon marka ay leeyahay waxa mucaaradka aan wuxuuda shaacin laakiin haddana hoosahan wuxuuda u wata riwaayado badan oo ay soo meteleen ay ka mid tahay riwaayadii Sooraan uu oran jiray labada nin oo tago inaan qof ay ictiraaf ayaa ka mid ahayd meelihii ay ka soo bilaabeen mucaaradnimadooda saas oo tahay waxay sirdoonka Soomaaliland CID la socday xaaladooda iyagoo ogaa inay yihiin mucaarad hursan ama iyagoo dawladda ka tirsan haddana mucaarad ku ah kadibna waxa la soo dirsay in lacagihii caadiga ah ay ku lahaayeen laga jaray sidii nin dawladda ka tirsan oo laga eriyo kale ay noqdeen lacagahoodii laga jaray buuxda looga jaray iyagoo dhacdhacoodii loo raaciyay lacagii caadiga gunooyinka raay kala helayeen oo dhan laga jaray saas oo tahay waxa ay bilaabeen waxa ay sii wadeen mucaaradnimadoodii sarbeebnayd iyagoo ilaa hadda aan si dhab ah u soo bandhigan mucaaradnimadooda laakiin sidii hore si ka sii cadcad baa waxyaabaha ay u sameeyeen hadda riwaayadii u dambeysay ee maalmihii dhaweyd magaalada ama qabsatay social media ee ahayd dad baa jira dadka waalaya oo Sooraan laxda wato dadkuna ay urida wato dadkuna ay leeyihiin laxba wata ayaa nabarkii ugu weynaa ama damarkii ugu weynaa ama noqotay arrinkii ugu weynaa ee loo qabsaday labadooda intaana riwaayadda macnaheedu isku day waxaan jeclaan lahaa horta in yar oo riwaayadda kamid ah aad ila aragtaan neefkoodan adigu wariyaahe lax meesha kuma hayee ibaan hayaa anigu lax ma hayo walaale warna ruuxa ka baxo laxda naga ibiniyo diibinayno iibahayn timay warida ciyaysa ma lax baan hayaa anigu wariyaahe laxda iga ibinaar meydihii xagaaga nayru ka baxeen ba war neefka rida faraayigada niyow warna ruuxa ka baxo laxda naga ibiniyo لحد واتي والله ما هي ورد يقصقين هذا ميد قف عادي ميد هاين من aynu dib ugu yar noqon riwaayadda ama dadka aan fahansaneen riwaayadda wixii loo jeeday sarbeebteeda aan in yar idinka taabto sawir arkaysan ba Sooraan wuxuu gatay uu ka soo gaxay reerkiisii ama reerkiisu mid deganaa ridaasi markuu sira iibi dadku waxay u arkeen inuu laxsito waa dadkii magaalada joogay ka bacdi Sooraan familkiisa uu guriga kaga yimid ama gabadhiisaasi saad ogeydeen iyaduna waxay sameysay Sooraan gabadhiisa uu guriga kaga yimid ee neefka u soo saartay waxa uu la jeedaan ama riwaayadu sarbeebaan u tahay waa Muuse Bixi Sooraan kala soo diray neefkoodana waxa weeyaan horta neefkan rida ah waxa weeyaan waa ictiraafkii Soomaaliland qofkan wada oo Sooraan imika ugu metelayaan wuxuu ka macna tahay dadkii uu Muuse Bixi u dirsaday in ictiraaf ku raadiyaan dadkan waxa uu dirsaday Muuse Bixi waxa ay garan waayeen meeshii ay wax u wadeen dadkan waxa uu dirsaday markay ictiraafkii caalamka geeyaan dadkii oo dhan waxay arkayaan laxdanna waxa looga jeedaa midnimo ribo wata oo ictiraafa laakiin dadku waxay arkayaan midnimo ama Soomaali oo aan deemid oo cad oo ay ku kala go'aan aanu soo bandhigin rikali wata ayuu soo isleeyahay ribo wata laakiin dadku waxay arkayaan midnimo oo ah laxday taas oo loola jeedo inuu Muuse Bixi dadka uu diray inay garanayeen waxay wataan oo ictiraaf waxay u soo bandhigi lahayn garanayeen kaliya afka kaliya dadku ay u fahmeen midnimo taas oo macnaheedu uga jeedo Muuse Bixi uu aad ama si aad ugu fashilmay arrimaha dibadda iyo ictiraaf raadinta Soomaaliland oo uu leeyahay dawladdan hadda waxa weeyaan wax alle waxay ka garanayso ictiraaf iyo sida banaan loogu baxaa ma jirtaba saas oo kale riwaayadda waxa ku sii arkayseen in uu Jawaano ka metelayay waxa kale meesha ku jirta Jawaan oo dadkii oo dhan ay u sheegayaan cidii uu doortay inaanay ahayn bicid moodayo dadku leeyahay gabadh bay ahayd oo isla leeyahay nin bay ahayd macnaheedu tahay inaan la garanayba Muuse Bixi inay wax uu yahay wax qabad deeyn madaxweyne uba qalmo baan la garanayba oo la yaabin leeyahay waxan yahay inoo doortay isagoo horta birgidooyo waxaan dooranay muxuu ahaa waayo oo uu yasayo oo waliba hadalkiisu ka cadcad yahay kii Sooraan dawladda Muuse Bixina aad uga xanaaqday oo ku kaliftay in Sooraan iyo Jawaan loo tago oo ahna takaliftay in Sooraan iyo Jawaan gurigooda loogu tago waliba haddaan riwaayadda wali si yar wado oo isku dayna wali si faafaayo soo noqoshada Sooraan markuu gurigiisa ku noqonayo uu leeyahay waan
neefkiina uu ka lumay waa dadkii ictiraaf ku dira wixii loo diraba ka soo lumay iska soo noqday iyagoo weliba iyagu iska dhaadhicin halku sooraan leeyahay kulli aniga gabadheeda waxba ay oran maysa iyadeedii baa xoolaheedii dacwo ka cunaysaa iska noqdo oo macnaheedu tahay Muuse bixisay baa arrimihii gudaha ee dalka ku fashilmay oo dalkiisii dadkii wixii ba iska hor keenay marka ictiraaf la soo way waxba u arki maayeen iska noqono oo macnaheedu soo tahay arrinka kale ee uu isagana jawaan kaga hadlayo inta aanan iyadana isku daynaan yara sharaxno horta ila arka maanta garan waayay wixii uu doortay inuu nin ahaa iyo inuu gabadh ahaa mushkiladda intaa leegahay hadda waan coday laakiinse maxaa layla yaabayaa dadkan maanta jooga waa ila wada midoo dadka way isaga codayaanoo wax allaale waxay doorteen qof qurhii garan maayo inuu mid wacan yahay inuu mid wanaagsan yahay kala doortay laftiisu ma yaqaano dadkii doortay waa la dooranayaa isna waa la dooranayaa isna wuu iska waxaa laakiin dadku dhan isku cidna ila yaabi mayse maadaama oo dawladdan Muuse bixina lagu eedeeyo in ay caburiso dadka ama qofkii kasta oo ka soo horjeeda ay madaxa ka istaagto waxay keentay taasi in guriga Sooraa iyo Jawaan loogu tago oo CID waraysato su'aalo la weydiiyay Khamiisii dhaweyd su'aalahaas oo weliba shuruud lagu xiray inaan cidna u sheegin ama warkaas aanay warbaahinta la wadaagin waana sababta ilaa hadda iyagu uga hadlayeen dawladdu inaan ka hadlin iyaguna aanay ka hadlin ilaa ay baritaanadu dhamaanayaan baritaankii koowaad way mareen weegan gudihiisa ayaa dan la rabaa in mar labaad loo yeero maalinta taay garanayna hadda laakiin marka la soo sheegay insha Allah waxaan jeclahay in fiidiyowga dambe ka soo hadlo xaaladdu dalkaasi marasa waa fiidiyowgaas sarbeeban ama riwaayadda adag ay ka horkeeyeen dawladda iyo dawladdii oo ka fahansanoo iyaduna isku daysay inay caburiso ama ay ka hor istaagto su'aalahan ay CID weydiinaysaan wax kale maaha waa riwaayadda gudaheeda ay laga weydiinayaa ujeedooyinkii ka leeyihiin sababta ay dadka ugu wacyigelinayaan mucaaradnimada intaa ay u sameynayaan iyadoo arrimo noocaas oo badan laga weydiinayo su'aalaha taasoo loo raadinay dambigii lagu xiri lahaa oo maadaama ay adag tahay in Soomaaliland inta qofka la iska qabto la iska xiro oo loo raadiyo sabab ama meel yar oo loo maro oo daloosha wada yar oo laga raadinayo haddii aad halka soo gaadhay channelka ma jecleen fiidiyowga intaas ay dhaafiyo inaad subscribe inoo saarto dhiirigelin bay tahay like iyo comment-iguna waxaan idinkaga tegayaa tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh iyo fiidiyowga xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh